Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal. Ha kuna soo dhawaada warka galabnimo ee raadiyaha KFM. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan warkayaga galabnimo waxaa ka mid ah dhegaystayaal. Cabasho la xiriirta abaarta oo ka soo yeeraysa Libooya. Musharaxa xildhibaannimo ee Kibra Mariga oo ku adkeysanaya inuu codbixiye yahay. Kenyaga oo laga diiday hindisaha wax looga bedelayo dastuurka. Xildhibaanka Kiharu oo weli ku adkeysanaya in Kenya ay u baahan tahay kaligii taliye. Wasiirka waxbarashada oo magacaabid sameeyay. Guddiga IEBC oo bayaan ka soo saaray doorashada ku celiska ah ee Kibra. Akhbaaraadka dibadda ee warkayaga galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhagaystayaal. Gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta Galmudug oo faahfaahin ka bixiyay wixii u qabsoomay. Ra'iisul Wasaare Khayre oo la kulmay bulshada Xudur. Tahriibayaasha ku xaniban Liibiya oo wadan caan ah ku dhawaaqay inuu la wareegayo. Iyo wararkii ciyaaraha ayaad ku dhagaysan doontaan warkayaga galabnimo. Waa galabnimo Arbaca, taariikhdu waxay ku asteysan tahay 11 bisha 9 ee Sebtembar sanadka 2019. Imikana ku soo dhawaada dhagaystayaal warkaasi faahfaahintiisa oo dhameystiran. Waxaa galabnimadan idiin waramaya anigoo Cabdiqafaar Habi ah. Shacabka ku nool Libooya oo ka mid ah deegaanka Dadaab ayaa cabasho ka muujiyay saameynta abaarta, waxayna codsadeen in gargaar lala soo gaaro. Iyagoo baaq gaar ah u diraya madaxda ay soo doorteen. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka deegaanka Libooya oo ka cabanaya abaaraha saameeyay. والد آدم محمد حسين أو كما هدير آدم توش وحصل أرورا لا يهي جيل هذا هو بسكرون لكن رودي يعري با وحصل أرورا لا مركا هذا تاسن إلهي وبعون نجب حنكرا دولت وهم باقو در لا إلى إنه سجرمته ويكشين روكنته وإلهي وكورة إن صوب وقته سنو وبابا نبع ماشان كدورنا وإلهي وكورة دورشان قلنا وراها نجم باقو وحنا الدمين ملء وحسن وفير ملء كبه ونميت كفرتيب marka dawladdu waxaan ka codsanayna inay soo booqato oo ay soo gaarto oo Ilaahay waa ku rooyahay ee bal xaaladda aynu ogaato. Aan magacaygu waxa la dhaqan aadan nolosha aan maanta ku nool ilaa 10 sano waxaan weligaan aragna ma waa mide abaarta Ilaahay baa keenay, Ilaahay baana bixin kara, ibn aadan ma bixin karo. laakiin waxaa jirta gargaar ay dawladda dadku u tirsanay shicibkeeda ay ku caawiso. taa uma fadhino, waxayna ku dhici waysaa mas'uuliyad ma qabno. hadduu council yahay, hadduu MP yahay, dawladda shisho dad baa nooga shaqeeya anaga oo gacantaanada ku jiraan adeegsan lahayn. dadkii anaga waxba kuma haysano. arta Ilaahay baa keenay, gargaarna kuma haysano, raashin ma haysano, hooyad ma haysano oo xoolihii way aroori laayeen. hadduu ari ahaa, hadday loo ahayd way isdaba istaagtay. kulli waxaan ku haysano oo gargaar ee mare aw maad baan u baahanoo raashin haddii naloo keeno, hadday cambuulo tahay, haddii ay maaragtay wax wala la siistay ay tahay, hadduu wuxuu dad cuna yahay waa lagu noolaan lahaa. Ciyaaryahanka McDonald Mariga ahna musharaxa xisbiga Jubilee ee doorashada ku celiska ah ee deegaanka Kibra ee magaalada Nairobi ayaa weli ku adkeysanaya inuu iska diiwaan geliyay hanaanka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC. Shalay ayay ahayd markii saraakiisha guddiga ee IEBC ay sheegeen in Mariga uunan u tartami karin xilka xildhibaannimo ee Kibra maadaama sida iyaga u muuqata uunan codbixiye ahaan isku diiwaan gelinin. hase ahaatee waxa uu ku doodayaa arrin la yaab ku noqotay oo ku tilmaamay in magaciisa laga waayay liiska codbixiyaasha ismaamulka Nairobi. waxa uu haystaa muddo 7 maalmood oo go'aanka IEBC racfaan kaga qaadanayo. jagada baarlamaaneed ee deegaanka Kibra ee loo tartamayo ayaa banaanaatay kadib markii uu cudurka kansarka u geeriyooday Ken Okoth oo baarlamaanka ku matalayay. Mariga hadduu isdifaaco waxa uu la tartami doonaa Bernard Otieno Okoth
oo ODM matalaya iyo siyaasiyiin kale oo ka kala tirsan xisbiyada ANC iyo Ford Kenya. wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka ayaa dhinac isaga dhigay hindisa sharciyeedka uu soo saaray madaxa xisbiga Third Way Alliance Dr. Ekuru Aukot ee la doonayo in wax looga bedelo dastuurka wadanka u degsan. ololahan ayaa loogu magac daray Punguza Mizigo oo ay micnaheedu tahay hala yareeyo culayska dhanka hoggaanka. waxyaabaha uu soo jeedinayo waxaa ka mid ah in la dhimo tirada xildhibaanada baarlamaanka sidoo kalena meesha laga saaro xilalka magacaabida ee golayaasha kala duwan. hindisahan waxaa wakiilada hordhigay hogaamiyaha aqlabiyadda ee golahaasi Kirinyaga Kamau Murango. hase ahaatee waxaa isla markiiba ka soo horjeestay siyaasiyiin uu ka mid yahay wakiilka degmada hoose ee Murindogo ee Evans Indege. mas-uulkan ayaa la doonayay inuu noqdo qofka labaad ee taageero soo jeedinta Aukot, balse maadaama uu diiday waxay tani micnaheedu tahay inaan laga sii doodi karin oo la hakinayo muddo 6 bilood ah. bilooyinkii ugu dambeeyay waxaa gudaha wadanka ka jirtay hadalhayn ku aadan hindisahan, iyadoo siyaasiyiinta qaar ay soo dhaweeyeen halka kuwa kalena ay door bidayaan in laga warsugo guddiga dib u heshiisiinta ee BBI. mudanaha laga soo doortay deegaanka Kiharu ee ismaamulka Muranga Mr. Ndindi Nyoro oo la soo sii daayay kadib markii dhawaan xabsiga loo taxaabay ayaa weli ku adkeysanaya hadal uu sanado ka hor sheegay. xilli xalay oo marti ku ah warbaahinta Citizen ayuu hoosta ka xariiqay inuunan weli wax iska bedelin fikirkiisi ahaa in hoggaan ahaan Kenya ay u baahan tahay qof gacan bir ah ku shaqeeya. waxa uu carabka ku dhuftay inay laga maarmaan tahay in dhanka kale laamaha ammaanka aan loo adeegsan arrimo siyaasadeed. sidoo kale waxa uu eedeyn u jeediyay xogayaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Karanja Kibijo. Mr. Nyoro ayaa ku nuuxnuuxsaday in dhibaatooyin uu maalmihii la soo dhaafay la kulmay ay yihiin kuwa sida uu hadalka u dhigay lagu bartilmaameedsanayo isaga maadaama taageero iyo garab istaag siyaasadeed uu u muujiyay madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto. wasiirka waxbarashada ee dalka Professor George Magoha ayaa 2 qof u magacaabay inay xubno ka noqdaan golaha maamulo ee machadka horumarinta manaahijta ee KICD. magacaabida Mr. Florence Ngaria iyo Mr. Johnson Nzuke ayaa lagu soo bandhigay wargeyska rasmiga ah ee dowladda. sidoo kale waxa uu wasiirku cusboonaysiiyay muddo xileedka Professor Winston Jumba iyo Professor Orva Okinti. golaha maamulo machadka KICD waxaa sidoo kale xubno ka ah Sara Ruto iyo sidoo kale Julius Jowan iyo xubno kale. guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee IEBC ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka waxa uu ku sheegay in ka qayb qaadashada doorashada ku celiska ah ee deegaanka Kibra ee ismaamulka Nairobi ay isku diiwaangeliyeen 30 musharaxiin ah. guddigu waxa uu xusay in ilaa ay hadda uu ansixiyay ama in ay tartanka xildhibaanimo ka qayb galayaan u ogolaaday 23 ka mid ah. 16 ka mid ah musharaxiinta waxay ka tirsan yihiin xisbiyo siyaasadeed halka 7 kalena ay si madax bannaan loolanka uga qayb galayaan. sidoo kale IEBC ayaa sheegtay in 7 musharaxiin ah oo aan weli la ansixinin waxaana loo aaneeyay inaynan ka soo bixin shuruudihii lagu xiray ama qaarkood aynan isa soo xaadirin. sidoo kale guddigan ayaa sheegay in ololaha siyaasadeed ee ku aadan xilka xildhibaanimo ee deegaanka Kibra ay soo bilowday 9kii bishan 9aad uu ku egyahay 4 bisha 11aad. waxa uu qorshuhu yahay in 7 bisha 11aad ee sanadkan deegaankaasi ay ka dhacdo doorasho ku celisi shacabka ay u helaan mas'uul baarlamaanka ku matalo. halka warkaasi dhageystayaal uu idinkaga imaanayo waa raadiyaha KFM. imikana akhbaaraadka dibadda. gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ee shirweynaha Galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow
ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha u suuragalay muddadii dhowrka cisho ahayd ee shirkaasi uu ka socday magaalada dhuusamareeb. waxa uu sheegay in tallaabooyinkan ay ilaa iyo hadda qaadeen ay ku guulaysteen ayna ku guda jiraan qayb beelaha shirka ka qaybgalaya lagu weydiinayo su-aalo la xiriira waxyaabaha ay tabanayaan, cidda ay ka tabanayaan iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin inay horay uga qaldameen dhismihii maamulkii hore ee galmudug. gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta shirweynaha galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo arrinkan ka hadlaya ayaa yiri gaar waxaan u salaamayaa reer galmudug meel kasta caalamka joogaan. waxaan rabaa maanta inaan maxsuulkii iyo arrinta maanta si noogu soo dhamaatay inaan warqadaada la wadaago. tan ugu horeysa waxaan rabaa idiin sheego saaka shirkan isugu yimiday waxaa aad looga hadlay dadka islaamka iyo culimada Soomaaliyeed ay ku leedahay dib u heshiisiinta. waxaa aad looga hadlay dhalinyarada iyo dowladkooda ayaa laga hadlay. waxaa la sameeyay laba panel oo mataqaana arrimahaas looga doodaayo ayaa laga hadlay. si aad iyo aad ayay uga qayb qaateen xubnaha kala duwan ergooyinku ay ka qayb qaateen doodaas aad uga qayb qaateen. fahmi fiican ayaa ka dhashay oo arrintaas aad iyo aad la iskula fahmay. dabadeedna sidii caadiga noo ahayd qaadada ka bacdi waxaa halkan ku shiray oo hadda shirka soo gabagaboobay 6 beelood oo beelaha ka mid ahaa beelaha galmudug oo la weydiinayo su'aalo. marka shanta su'aal ee soo socota ayaa la weydiinayo beel kasta inay ka soo jawaabto. su'aasha koobaad beel ahaan maxaa tabanaysaan haddaad tihiin meeshaas meeshiina maxaa tabanaysaan? su'aasha labaad yaad ka tabanaysaan? su'aasha saddexaad waxaa waaye aragtidiina maxaa ka qaldamay galmudug maamul ahaan? 4 sidee baad xalka u aragtaan? 5 aragtidiina sidee la tahay in galmudug cusub loo soo dhisi karo? شانتا سؤال يا محل ويدينا بيركستا صار ديش شاغبا ان شاء الله افر بيرودا ارنتا كسو جوابتي ما انت اللي حيا كجوابتي بيلها نوارنا ان شاء الله بريتا يكسو جواب دونان markaas kasoo wada jawaabaan su'aalahaas oo dad waxa ka doonaa su'aalahooda ayaa kulmi doonaa. waxaan u qaybin doonaa qaybo kala duwan, qaybo anaka aan xalin karno, qaybo mataqaana qaybta labaad ee shirka lagu xalin karo, iyo qaybo maamulka la samayn doono oo halkiisa la sugi doono ayaan u qaybin doonaa insha Allah. arrinta halkaas ay noo maraysaa. shirkuna aad iyo aad u sukuul u socdaa. waxa dhibaato qabaatan hay'ad ma jiraan. beelaha kulligeeda wada joogaan. waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo uu wehelinayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kulan la qaatay maamulka degmooyinka Xudur, Rabdhuure iyo Tiyeglow kaasi oo looga hadlayay xaaladaha ka jira gobolka Bakool. maamulka degmada Xudur iyo odayaasha ayaa madaxda kala hadlay dardargelinta howlaha dib u xoreynta deegaanada hoos yimaada degmada iyo sidii loo tayeyn lahaa xarumaha wasaaradaha caafimaadka, xarumaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidii looga qayb qaadan lahaa dib u xoreynta guud ahaan gobolka Bakool. maamulka iyo odayaasha dhaqanka degmooyinka Rabdhuure iyo Tiyeglow ayaa sidoo kale madaxda kala hadashay sidii degmooyinkaasi looga saari lahaa al-shabaab oo gacanta ku haya degmooyinka ay gudoomiyaasha ka yihiin. Ra'iisul Wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre ayaa ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan arrimaha waxbarashada, caafimaadka iyo shaqo la'aanta jirta. waxaana sidoo kale uu sheegay in muhiimadda koowaad la siiyo sidii looga shaqeyn lahaa amniga gobolka Bakool. ka dowlad ahaan ay wax ka qaban doonaan tayeynta ciidanka xoogga dalka. ugu dambeyn Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa mas'uuliyiinta iyo odayaasha dhaqanka uu kula dardaarmay inay xoojiyaan hanashada ammaanka guud ee gobolka Bakool si dadka ku nool ay nabad ugu wada noolaadaan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo arrimahan ka hadlaya ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa: waxaan qirayaa markaan magaaladan in dadkaas uu qab ka muuqday, in dadkaas ay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo Soomaalinimada qiimo u yeelay. waa mahadsantiin sharafta aad Soomaali u soo hoyseen. aad iyo aad ay taariikhda ummadda Soomaaliyeed ugu naqshadaan. wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed ee dalkan ka soo xoreeyay gumaysiga shuruud cidna kuma xiri jirin, xoolo cid maanay weydiin jirin. waxay ku bixiyeen dhiigooda iyo wixii yaraay ay haysteen si ay annaga gacanta noogu geliyaan dal xora. Xudur waxay xasuusisay gobonnimadoonkii iyo xorriye dhaliskii
وماتنتي حديدة سوماليات مرر بدن أي كفكرين جد كنا جهرية ودي بدن يهي وعندي رأي هذا مغليسان كالية كوبوس غات حضور siday cadowga isaga xoreeyeen iyadoo aan xiriirtaaqoyn marka la fahmay inay mudnimadu muhiim tahay isku duubnidu ay waajib tahay qaradnimadu ay quwad tahay marka la garto in kala qoqobnaantu ay hoog tahay marka la garto in qof waliba uu ximbaarsan yahay mas'uuliyadtiisa ka weyn oo ku salaysan qarannimo ayaa waxaa imaanaysa tusaalooyin aan wax ka baran karno oo ah sida kuwa xudo aniga iyo madaxweyne Cabdicasiis iyo wasiiradii xildhibaanadii ila socday nagu waajib ma aha inaan wax idin sheegno waxaad xaq noogu leedihiin inaan wax idin ka barano wixii aan idin ka baranayna aan ku dabaqno dalka intiisa kale waa aaminsanahay wixii xudur laga sameeyey intiyaglowna laga samayn karo rabdhuurna laga samayn karo dalka intiisa kalena laga samayn karo haddii la qaato khibradii laga dhaxlay reer xudur wiilashii iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhalinyarada ah oo cid walba magaaladan soo gashay iyadoo kontaroosha oo dhiil walba caana furta oo qori gelisa oo qof walba jeebakooda barta oo habeenkii jidadka socda inta waagu ka bariyaayo si ay u hubiyaan inaanay soo gelin qof aan la garanayn waa wixii aan 2 sano bar u sheegayna shacabka Soomaaliyeed aniga madaxweynahayga oo ah dawladnimadu waa dadku isu tagay waa wiil gabar isxilqaamay waa qof wax dheeraad ah sameeyay waa qof isagu isku tashaday laakiin aan tusaale u lahayn tusaalihina aan ugu nimid xudur oo ku maasantii waan ogahay inaad baahiyo badan qabtaan waxaan la kulmay dhammaan mas'uuliyiinta reer xudur aniga iyo madaxweyne Cabdicasiis oo ah markii afaraad uu yimaado xudur sidii madaxweynaha loogu doortay taasaa daliil u ah inuu rabo dalkiisa inuu wax u qabtay dadkiisa waxaan nala soo bandhigay baahiyaha qabtaan anagoo la kaashanayna dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo beesha caalamkaba waxaan laga bilaabo maalinta berri ah indhaha dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku soo jeedinayna in sida ugu dhaqsaha badan dadka reer xudur loo soo gaaro loona caawiyo hay'adaha dawladda ama amni ama horumar waxaan leeyahay halkan waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo isku tashaday dhulkooda xoreystay horumar sameeyay soo gaara hay'adaha caalamigana oo dalkeena ka howlgalana waxaan leeyahay waa la idin kula xisaabtamayaa haddii aadan xudur waxa ay rabaan u qabanina waan idin kugu sheegaynaa coddeeda dowladda Rwanda iyo qaramada midoobay ayaa isku raacay inay dowladda Kigali la wareegto maxaabiista tahriibayaasha ah ee ku jira xabsiyada dalka Liibiya heshiis ay kala saxiixdeen hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga iyo dowladda Rwanda ayaa waxa ay isku raaceen in toddobaadyada soo socda 500 oo qof oo ku jira xabsiyada Liibiya la dejiyo dalka Rwanda tahriibayaashan ayaa u kala dhashay dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Suudaan waxaana ay u badan yihiin dadka nugul sida caruurta, haweenka iyo dhalinyarada. Germany oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha qaxootiga ee dowladda Rwanda ayaa beenisay in qaabilaadda qaxootiga ay lacag kaga helaan ee qaramada midoobay. Wasaaradda waxa ay sheegtay in ficilka Rwanda uu yahay kaliya mid bini'aadanimo iyo Afrikaanimo waxaana ay meesha ka saartay inay lacag ku heshay dowladeeda. qaramada midoobay ayaa bishii 7 ee sanadkan ku dhawaaqday in la xiro dhammaan xabsiyada Liibiya oo ay sheegtay inaysan u qalmin meel bini'aadamka ku noolaado. sidoo kale waxaa jirtay isla xilligaasi in dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya ay beegsadeen xabsiyo ay ku jireen tahriibayaasha halkaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 50 qof. imikana wararka ciyaaraha ciyaar dhaxmartay dalalka Soomaaliya iyo Liibiya ciyaarta oo ahayd mid si weyn ay u wada sugayeen dadka Soomaalida ayaa bilaabatay markay saacada Afrikada bari ahayd 4 galabnimo. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa labada dhinacba ay isku dayeen inay goolal la yimaadaan balse ma suuragelin. waxaa qaybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay eber iyo eber. qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa waxa ay ku bilaabatay xamaasad isla markaana ciyaartooyda labada dhinac ay dardar cusub bilaabeen. ciyaarta markii ay maraysay daqiiqadii 77 ayaa waxaa xulka kubadda cagta ee Zimbabwe ay dhaliyeen goolkii koowaad oo uu dhaliyay Marshall Munetsi. daqiiqadii 85 ayaa waxaa goolka barbaraha u dhaliyay Soomaaliya
Cumar Maxamed waxayna ciyaarta noqotay 1-1 balse daqiiqadii 86 waxaa goolka labaad ee Zimbabwe u dhaliyay ciyaaryahanka Admiral Muskwe waxayna ciyaartu noqotay 2-1 daqiiqadii 90aad ayaa waxaa Soomaaliya laga dhaliyay goolkii saddexaad oo uu dhaliyay Akhama Bilate ugu dambeyntii ayaa waxay ciyaartu ku dhamaatay 3-1 sidaas ayaynu guusha ku raacday Zimbabwe. dhageystayaal guud ahaan warkii galabnimo ayaa intaa ku eeg warka waxaa soo diyaariyay Saako Buule waxaa farsameeyay Cabdixakiin Adeero Maxamed waxaana idin la socotiinay anigoo Cabdiqafaar Habya. dhageystayaal intaynu ku kulmi doono warkan warka xiga saaxiibayaal waa saaxiibkiin Habya oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.